Manchester United oo dalab rasmi ah ka gudbisay weeraryahanka RB Leipzig Benjamin Sesko. Wariyaha weyn ee David Ornstein ayaa shaaca ka qaaday in Manchester United ay si rasmi ah dalab dhan 75 milyan oo euro iyo 10 milyan oo gun ah ka gudbisay weeraryahanka kooxda RB Leipzig Benjamin Sesko. Sida lagu sheegay warbixin hore oo ka timid The Athletic 30 July, United waxay si gaar ah u bartilmaameedsatay Sesko haddii ay go'aansato inay la soo siixato weeraryahan kale inta lagu jiro suuqa xagaagan. Waxaa sidoo kale la sheegay in Red Devils ay hore ula sameysay xiriir aan rasmi ahayn kooxda Bundesliga. Dalabka United ayaa yimid kadib markii Newcastle United ay iyaguna hore u gudbiyeen dalab la mid ah oo ahaa 75 milyan oo euro iyo 5 milyan oo gun ah. Hase yeeshee waxaa la sheegay in Leipzig ay dalabkaas ku gacan saartay, taasoo ku qasabtay Newcastle inay kor u qaado dalabkooda iyagoo gaarsiiyay 80 milyan oo euro. Hadda Manchester United waxay damacsan tahay inay Sesko ku xoojiso weerarka tababare Ruben Amorim iyagoo wajahaya tartan adag oo kaga imaanaya Newcastle. Manchester United waxay muujisay sida ay uga go'an tahay helitaanka Sesko iyadoo kor u qaaday dalabkeeda. Inkasta oo Leipzig aysan weli ka jawaabin dalabka cusub, haddana waxaa muuqata in dagaal suuqa ah uu ka dhex taagan yahay labada kooxood si ay u helaan weeraryahanka da'da yar ee reer Slovenia. qodobkan xiisaha badan wuxuu qayb ka ahaa barnaamijka bandhigga ciyaaraha oo aan uga hadlaynay wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.